ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen deegaanka Kuunyo Barow oo hoostaga degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ee ku qaarijiyeen horjoogihii maleeshiyaadka ururka argagixisada ee Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca sirdoonka. Howlgalka ay fuliyeen ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska xoogga dalka ee Danab ayaa lagu qaarijiyay horjooga Cusmaan Garweyne kaasi oo maleeshiyaadka naflacaariga ah ee Al-Shabaab u qaabilsanaa sirdoonka. Ciidanka kumaandooska oo xogta horjoogahan hayay ayaa ku guuleystay qaarijintiisa wuxuu horay u soo noqday madaxii xabsiyada Al-Shabaab dadka shacabka ku dhibaateyn jireen sida ay idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegeen saraakiisha ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee Danab. Horjooga Cusmaan Garweyne ayaa ku caanbaxay dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed balse ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kumaandooska Danab ayaa soo afjaray dhagartii uu ku hayay bulshada Soomaaliyeed. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkan joogteeyay howlgallada guud ahaan dalka loogu sifeynayo haraadiga kooxda waqtigooda sii dhamaanayo ee Al-Shabaab.